السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي سود هذا مقال كان حن ربنا يقول تصو سيدات علي بابا على بولسو أتيجان لهاد كديم صاحباتو كان سنكرتيد سوماليا ندوق كسو أتيجان إسا سوقنا علي بابا وكويا لدلك تشاينا مركا waxaan rabaa inaan tuso sida aad step by step aad u raaci lahayd oo ula soo iibsan lahayd alaab kadibna aad ugu keenna ama Soomaaliya ama Kenya ama Ethiopia halka aad joogtidba marka aad computerkaaga soo kala furtid laptopkaaga ama computerkaagaba waxaad ku qoraysaa alibaba.com ayaa soo qoraysaa marka alibaba.com soo qortid sidaan ayaa kuu soo baxaysa screenka sidaa markay kuu soo baxdo aanaba kow halkan iska bedel waxaa laga yaabaa halkan waxay tahay South Africa adigu iska bedel Soomaaliya kale مثلا ka dhiga right save dhaha kadib waxaad tagaysaa ciwaan ayaa ka furanaysaa meeshaas may Alibaba ayaa tagaysaa ay ku qoran tahay kadibna waxaad leedahay join for free halkan marka waxa ku qoraysaa wadanka aad joogtid gelinaysaa Soomaaliya okay kadib adigu maxaa tahay qof wax iibsanaya is qof wax iibinayo qof wax iibsanaya emailkaaga halkaas geli emailkayga kala sii gelinayaa password ayaa dooranaysaa oo hadhood ku soo galaysa ciwaanka markale passwordka gelinaysaa company name kala magac iska gashan kartaa daartid business kaga magaciisa dar iska gashan kartaa daarta magacaaga iska qori kartaa shiro kala dad iska geliyo iska caadi magacaaga dhammaystiran baa gelinaysaa kadibna taleefankaaga gelinaysaa tiyan register ayaa leedahay lambarka iga baahan yahay qasab calaamada yarta taxi agreed kadibna register dhaha code waxay kugu soo dirayaan emailkaaga codekaas emailkaaga ka soo fiiri taleefankaaga tag gmailkaaga codekaas ka soo fiiri kadibna meeshaas geli okay boom ciwaanka waa sameeyay business type kaaga muxuu yahay inta iskaga dhufo just individual iskale then continue dhaha okay waxaan imaanay haatan website-keena lagu soo celiyay marka wax kasta aad doonaysid si fudud waxaad ugu raadsan kartaa kow halkan ma garatay marka sala waxaan doonaynaa inaan raadsano kabaha ragga kale ayagoo intaasoo nooc kala duwan soo bax laakiin
kow ila soco muuqaalkana daawo ilaa dhamaadka waayo meelo muhiim ayaa laga yaabaa inay ku dhaafaan. markaad intii timaadid ood meeshuu isku soo qoratay kadib waxaad imaanaysaa halkan filterska, kadibna waxaad ku dhufanaysaa trade assurance-ga meeshaas filterska dhagsiisa. trade assurance-ga waxay kaa caawinaysaa lacagtaada waxaad ku bixinaysaa Alibaba oo supplier kaa qaadan maayo. Alibaba ayaa lacagtiin idiin haynayso. mar alla marka alaabtaada heshid supplier-ka loo fasaxayaa lacagta ka hor maya. verified dooro. verified waxaa waaya supplierada meeshan verifiedka dadka verifiedka waa dad lagu kalsoonaan karo oo laga qaado sanadkiiba lacag, marka dad isku kalsoonaan kartid. okay intaas kale muhiim maahan, labadaas oo muhiim xaggas laga soo doortaa. inta imaa marka kuwana marka haddaad doonaysid in lagu design gareeyo ay ku design gareynayaan design-ka aad doonaysa oo dhiibanaysa hadda kuwan oo kale kambaniga oo kale. sorry maamutiyey timaho kambaniga oo kale subartan waxay u fiican yihiin dadka doonaya inay sportka sameeyaan sida jimka, orodka, aaday u anfacayaan. kormaray ka yihiin hoosna aragtaan. marka waxaan waa tusaale aan usoo gudubna qaabkan marka aad ula xiriiri lahayd supplierkan. marka supplierka markaad doonaysa la xiriirtid contact aad ku dhufanaysaa halkaas contact supplier leedahay. no sorry ta waxaa ka fiican qaybta chatka soo idiin soo celiya qaybtaana ka fiican chat ayaa leedahay kaas chatka caadi aad ula sheekaysanaysaa. halkaanaad ku qoraysaa oo kale waxaad doonaysaa magacaaga oo kale waxaan ka helo kale alaabtaada waxaan raadinayaa oo kale kabaha ragga sport shoeska. marka intaas markaa u jirta saa kuusoo jawaabaya. hodha wuxuu ku weydiin doonaa ma haysataa wadankaaga alaab ma geyno laakiin ma haysataa qof alaab kuu qaado. marka meesha dadka badan inta ku wareeraan inta waayo qofkii supplierka markay la xiriiraan supplierka wuxuu weydiinayaa alaabta kuu soo qaadaya ilaan anaga halkaas alaab ma keenno. qaarkood waxay ku leeyihiin alaboorkan kuu keeni karnaa ayagoo kaa qaadaya diyaaradda lacagteeda. marka qofkii diyaaradda ku keensanaya oo kale elaboorka markay ku timaado elaboorka ma iska dibiri kartaa alaabtaada elaboorka ma kala soo bixi kartaa. laakiin kuwa waxaa jira elaboorka taa kuu soo dhaafin kara waxaadna kala xiriiri kartaa oo kale sidan ayaad lagu raadsadaa. waxaad qoraysaa meesha qaybta sajka ayaa tagaysaa waxaadna kadib ku qortaa qaybtaan la muhiim la fiiriya waxaad ku qortaa China to Somalia shipping agency abkana hore ka soo baxay kiraadis u baahan kudigood ku soo wada baxayaan oo ma badna shipping agency-da Soomaaliya labkeeno. marka tartiib u raadi ilaa uu ka soo baxa. kiraadiskana waqti muuqaal laga waa buusinaya muuqaalka. okay waxaan helnay midkan oo dhahaya shipping agent from China to Somalia free consolidated agents DHL shipping Somalia Mogadishu shipping to Somalia Lesotho Kenya. okay kana ku dhufanina
maxay ku qabanayaan maxay ku sameynaysaa tan haddii package-ka oo qofkii supplier-ka uu si fiican u soo xirmo karo ay ku sii xireen kuwaas si adkeynayaan way ku furayaan oo ku fiirin karaan alaabtii lagu keenay oo qofka supplier ku keenay in alaabtii saxda ahayd diyaaradda alaab kugu soo qaadi karaan waxa kale kugu soo qaadi karaan markab marka labadaas way qabtaan sida meeshan ku qoran waa raqiis diyaaradda $1.5 per kg ilaa hadda adiga dhaadid in qofka supplier-ka alaabta iyo DHL soo saar oo laborka ka qaadan kara waxa laga yaabaa inuu qiimo qaali ku saarto waa jiraan kuwa Soomaali ayagana sidoo kale kiilada $12 ku qaadan marka qofkii alaab yar iska wato kale kama bixi karo marka waxa sameynaysaa kale halkan chatka qaybtan chatka ayaad ku dhufanaysaa si aad ula xiriirtid agency-gan kadibna waxaan leedahay kale waxaan doonayaa in alaab ka soo adeegto China magacaaga markaas iska hormare kala xiriirisid la xiriirto sheegtid magacaaga sheegtid waxaan doonayaa in alaab supplier ka gato kadibna wadankayga uma soo diri karo marka waxaan doonayaa inaad alaabteedii soo qaadaan oo sii keentaan wadankayga kadib waxaa waaye ayaga kula soo xiriiri doono markay kula soo xiriiraan waxay ku sameynayaan waxay ku siinayaan address bay ku siinayaan address markay ku siiyaan addresska ay ku siiyaan qofka supplier-ka la xiriirtay si waan u dhageysta addressku qofkan shipping agency-ga la xiriirto uu ku siiyo ayaa waxa siinaysaa qofka supplier-ka qofka supplier wuxuu sameeyaa alaabtaas wuxuu ku geenayaa meeshii qofka agency-ga ahaa xaruntiisa ku taalo ku geenayaa agency-ga kula soo xiriiraya ama adiga la xiriirayso xaalada alaabtii mid soo gaartay haday ku dhahaan lacagta oo maxay qofkan ahayn supplier-ka bixinaysay waxa uu fasaxaysaa kadib waxaa badana bixinaysaa lacagta kale oo aad ku heshiiseen qofka agency-ga waxaa leedahay marka hore iga fiiri alaabta ka fiirinaya markay sax noqoto kadib uu ku soo package gareynaya kadibna wuxuu ku bilaabayaa delivery process-ka marka lacagtan asaga naftarkiisa waxaa ugu diraysaa Alibaba ayaa ugu diraysaa cos in outside ugu dirtid oo laga wanaagsan yahay adigoo Alibaba ku jirto marka kula soo xiriiro oo heshiisan baa ugu diraysaa marka ugu dirtid kadib maxay mar alla marka alaabta ku timaado ayaa hadana asna lacagtiisu fasaxaysaa qaybta orders-ka lagala socdo oo ugu dambayso inay rabaan inaad intuso waa qaybtan meeshaas madaxa ku sawiraya halkaas waa ku dhufanaysaa kadibna waxaad tagaysaa orders orderadaada idil inta imaanaya marka aniga hadda wax order meeshan iima yaalo marka laakiin order uu ku yaalo intaad kala soconaysaa marka waa fahanteen baan malaynayaa saaxiibayaal maqaalkan aad baan u taahiyey insha Allah maqaal kale noo samayn doonaa dhammaystiran oo full ah la soco maxay channel-ka haddii aad marka kugu horeysay soo booqato soo subscribe garee maqaalkan laga hal saaro aad baa u mahadsantihiin